بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحقيقة كينيا كما قولي كرتو حلك إلهي كو أبوري. صوماليا كما قولي كرتو حلك إلهي كو أبوري. دولتي الصومالية هدي أي بربرتاي وحانو أصوق حني الدولة ده الدرسكة كينيا كميدا هيدا ودني كفايدي أنا قونا ويدي كفايدني صد السندود كدب إن أولادي إن الدحمرتو مرنا ما ننفلين صوماليدو واتد أبالك الجدا وحين الدولة دا كينيا أهيسا أبال عروتي الصومالية الحريها قحوتكي وحكو برطان مصالح بأيدين كتشلا مصالح بأنو كتشلا كوب إيه طبان كي مودانة شالي ويلسون ايربورت كهدلي. This is message. وقدو يهين حقيقة الضبطة قف كستو سياسية أو صومالي NFD محايلي بودر كي بدكيهين منديرة بولا حاو وما أي بحنا دباتو تاسا وحي كنت مركا إن مدحضو دي منديرة وشير غارسة إني حقيقة أدوادين waxaan jeclahay madaxweynaha Kenya Mr. Uhuru Kenyatta waa saaxiibkay sideedabana madaxda Kenya waagii suusaydkaanu isbaranay aan sameeyey waxaan kaa codsanayaa inaad message-ka ay kuu keenaan xildhibaanadaadu aad ahmiyad gaarsiisid maxaa wacay waa message run ah waa message u dana labada wadan waa message u dana nabadda qodobka intaasan ku dhaafaya ceelkan shiidaalka ah dowladdii ka horreysay dowladdan baa geysay maxkamad President Farmaajo he is come to parliamentarian system madaxweyne Farmaajo waxaa doortay baarlamaan wuxuuna ku yimi baarlamaan systemka jiraana waa parliamentarian system meel uu ka dhaqaaqi karo male waa stuck maxaa yeelay
dowladdii ka horreysay baa geysay iyadii baa waxay ku sugaysaa afaafka hore madaxweynaha dambe ka dambeeya kasii dambeeya haddaad idinku keentaan idinku Kenya ay keento kama talaasilayo never maxaa yeelay waa wax ay Soomaali leedahay maxaa yeelay waa wax Soomaali ilaashanayso sida awgeed yaan xidhiidhka labada dal ceelkaasi xumayn si optionno fara badan baa jira oo loo wada macaamili karo laakiin hadda waxaan ku talin lahaa inaynu maxkamadda ka warsugno waa message aan u dirayo madaxweynaha dalka Kenya mudane Uhuru Kenyatta 3 way aad Axmed Madoobe ugu dhigantihiin waxba Axmed Madoobe idinma tari karo inta uu hadda idin yeelay in ka badan inuu idin yeelo mooyaane waxba idinma tari karo wasiir janan waxba idinma tari karo mucaarad kasta oo Soomaaliya ku ah waxba idinma tari karo maxaa yeelay Kismaayo waa Soomaaliya ee maaha Kenya qodobkaana intaasaan ku dhaafaya waxaynu ka mid nahay midowga Afrika waxaynu ka mid nahay urur goboleedka IGAD waxaynu ku jiraa United Nations waxaynu nahay dad dirisa turubka bandheeya sida wanaagsanna ciyaarta u soo dhiga maxaa yeelay maslaxadeena ku wada jirta qodobkaana intaasaan ku dhaafaya Soomaalida Kenya joogta ee siyaasiyiinta ah ee hodheelada ku cabaysa waxa qabow waxba idin tari maayaan iyaga laftoodu maxaa yeelay waxa ay yihiin waa taqaaneen waxay idin saxeexeen markay idin saxeexayeen waad garanayseen waxa ay yihiin maantana waxa ay yihiin waad garanaysaan berrina waxa ay yihiin waa waxa ay maanta yihiin dowladda Kenya وإني لما عامشات دولة الصومالية وإن مدحوين أهورو كينياتا وكدقا حمر وإني ميسكا وضا فديستان مدحوين محمد عبد الله فرماج وإناني تاريخ حمو آني أسوه ينلبد الشعوب إيكو كالنور صوماليا إيا كينيا الحقيقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليدر علي طاعون